بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلام ولا ليga qaaliga ah meel walba aad joogtaan iyo waqti walba idinta waxaan rajaynaynaa farxad iyo caafimaad qabtaan ilaahay idin siyaadiyo inta xanuunsanaysa Allah caafiyo inta caafimaad qabta Allah u siyaadiyo ku soo dhawaada mar labaad channelkeena waxaan idin la wadaagayaa rootiinkaygii maantay insha Allah rootiinkan waxaan duubasho oo jimcaha laakiin sabtiga ayuu idin soo gaarayaa ugu horeyntii waxaan rabaa ilmaha inaan u sameeyo pizza waxaan ku qasi doonaa bur 450 gram ama 3 bakeeri oo wax yar dhiman ayaan ka dhiga doonaa insha Allah burka marka soo cabirtay waxaan ku darsanayaa 3 qaando oo ah sokor waxa kale oo ku darayaa qaandada cuntada lagu cuno oo leebita ah iyo wax yar cusbe ah hal xabo ukun ah iyo qaandada teaspoonka labadeeda oo ah caano booro waxa kale oo ku qasi doonaa biyo qandac ah hal bakeeri halaas isku qasaa insha Allah si fiican u soo xashaya waxaan rabaa inaan caruurta uga dhigo pizza oo ah quraaca uga dhigi kartid qada uga dhigi kartid laakiin caruurta u sameynaya hal saxan oo kaliya ayaan ka dhigi rabaa insha Allah soo dhawaada idin leeyahay meel walba aad joogtaan waa idin mahad celinaa sida quruxda badan ay igu xiran tihiin commentiyadiina quruxda badan jasaakumullahu khayran walaalaha qaaliga igu soo biiro soo dhawaada channelka waa channelkiina hadii channelka uu subscribe ku ahayn waxaan ka codsanaynaa subscribe noo saartid gambaleelkan on ka dhigatid saa u noqotid daawadaha ugu horeeya ee daawada fiidiyoyaasheena insha Allah waa soo qasay waa dhiganayaa insha Allah way isoo qamiireysa intaas waxaan rabaa inaan si sameeyo sooski iyo waxaan rabaa inaan si sameeyo quraac waxaan soo shiidayaa basasha yaanyadii iyo barbarooni toon halaas isku soo shiidanaya halkan waxaan ku sameynayaa canjeerada waxaan rabaa inaan ku daro ukun insha Allah ukunta waxaan soo qasay 2 xabo wax yar cusbaan ku soo daray hadaa rabto sokor ku darsan kartaa insha Allah canjeerada ayadoo wili ceyrin ayaan ku soo daray hadaa ayadoo bisil ku daraa dhahdid ukunta way gubanaysaa waxaan rajaynayaa qof walba uu yaqaan intaan aqoonin inay ka faa'iideysan doonaan insha Allah sidaas u soo sameynaya canjeerada masha Allah caruurta aad ugu wanaagsan tahay masha Allah waxa ku darsan ukun hadaa rabto waxa ku darsan kartaa cheese-ka yararka oo 3 geesoodka ugu dari kartaa marka ukunta garaacaysid oo ku qasaysa masha Allah aad caruurta uga helayaan sidaan ku soo sameynaa insha Allah waa ku soo wadaaya 2 xabo ukun soo garaaca wax yar cusbe sasa ugu daraaya sokor ku bedela hadaa rabto cusbada ku sameyso masha Allah waxay diidaysa malahan insha Allah sana ku soo dhameeyay walaalayga qaaliga ah waa u jeedaan sida jabaati camal ay u soo ekaatay waan jarjarayaa 3 gees sambuus camal laga dhigayaa insha Allah masha Allah markii aan canjeerada aan soo dhameeyo waxa kale oo aan sameysanayaa insha Allah spinach kan masha Allah hadii aad hooyo tahay aad ku anfacaya diet sameynaysid because wuxuu leeyahay baamiye badan qudaar badan masha Allah wax walba taa cunaysa ku darsanaysa marka ani waxaan rabaa inaan hal mar wax badan aan karsado oo fridge-ka aan gashto mar walba taa wax ku cunaaya aan soo baxsado hadii aad tahay hooyo waa iska mashquulaysaa marmar naftaada ka mashquulaysaa laakiin wixii markay diyaar ku yihiin hadii aad caruurta cuntada u karinaysa aadan cunayn waa soo qabsanay waa cunaysaa spinach-ka waxaan ku soo daray rayko wixii dhan hal mar aan isku soo wada daray saasa dabka ku saaraa insha Allah cusbadiisa raykiisa oo dhameystiran yahay halkan waxa ii saaran sooski oo pizzada hadda waxaan ku soo daray wax yar oo xawaaji mixi ah iyo wax yar filfil ah wax yar sactar ah iyo waxa ku soo daray paprika masha Allah sooski waa diyaar spinach-ki dabkan soo saaray sidaan ku soo bislaanaya halkan waxa ii saaran chicken-ki aan ku sameyn lahaa pizzada chicken-ka waan soo dhaqay waxa ku daray wax yar oo ah chicken masala iyo wax yar cusbe wax yar filfilaha ku daray waxaan ku darayaa biyo insha Allah spinach-ka waa u jeedaan masha Allah asiga baamiyihii karootadii sukiinigi basashi dhiinta isku soo noqdeen masha Allah waa ka soo dejiyay halkan waxaan ku sameysanayaa pizzadii oo ii soo qamiirtay saxanka leer waa inaan ku sameeyo halkan saxan ayaa ugu sameynayaa caruurta insha Allah 2 bakeeri iyo barbur ama 450 gram waaye 2 bakeeri iyo barka xogaa wuu ka badan yahay marka hadaa miisaan haysato ku cabir kartaa hadaad miisaan haysanin 2 bakeeri
oo buuxdo iyo bakeeri aan saaid u buuxina ka dhiganaysa waxaan soo qaatay markii cajiinkii aan fidiyo istakiinkaas ku duduleelina fargeeta ku duduleeli kartaa istakiina ku duduleeli kartaa waxaan soo qaadanayaa sooskii oo pizzada sidaas ugu shubaya kadibna waxaan soo qaadanayaa insha Allah chickenkii oo isoo bislaaday waxa kale oo aan soo hoolay mozzarella cheese aan soo hoolay asagana waxaan rabaa insha Allah in asagana aan kor uga daadiyo cheese-ka kadibna waxaan geli doonaa insha Allah foornada saxankan aan isticmaalayo uu cusub yahay marka ciyoom hore ma ka bislaanayo marka waxaan rabaa inuu cabaar uu hoos uga shidnaado kadib aan kor iyo hoos uga shido insha Allah waxaan rabaa inaan sameeyo jibsiga hore u soo jajartay jibsi qof walba uu jajar yaqaana idin lama soo wadaagin markaan soo dhaqay jibsiga waa soo qalajiyay maraan ku soo qalajiyay waa u jeedaan waa qaleel masha Allah jibsi qatar ee caruurta jecel yihiin ayaan rabaa in aan u sameeyo waxaan ku soo shubanayaa saxankaas waxaan soo qaadanayaa corn flour ama warango ayaan soo qaadanaa insha Allah warangadaas rabaa inaan kor uga shubo kadibna waxaan soo qaadanayaa insha Allah cusbo iyo paprika halaas ku dari rabaa masha Allah jibsi oo spice leh oo aad u macaan ayaa meesha ka soo baxayo caruurtana aad u jecel yihiin xitaa uma baahna tomato sidiis ay ku cunayaan masha Allah waa jibsi qaleel ah oo crunch ama qababax leh oo saliidna ina ka galeelin masha Allah markii aan sidaas u soo sameeyo mashiinka uu ii daaran yahay gabar ay soo weydiisay mashiinka sambuus ma ku sameeysaa sambuus ani weli ma ku sameeynin burna weli ma ku dubin inkasteeto oo bokiska aan soo gaday ay ku sawirnaayeen haddana kuma sameeynin because mashiinkan mid ka horeey aan haysay jiray aan hadda kor ku baroobay sambuus saliida iga gashay laakiin kan ma ku baroobaynin insha Allah hadii aan ku sameeyno wad la soo wadaagi doona waxaan ku daray cusbo waxa ku soo daray cusbadii kadibna saliidda ay soo kululaatay waa ku darsanaya insha Allah hal mar kuma wada ridaayay 3 mar camal ayuu noqonaa insha Allah hadda waxaan ku soo darsaday paprikadii insha Allah sidaana u dubaya walaalayga qaaliga ah spinachkiina waan ka soo dejiyay insha Allah spinachka hadaa rabtid bacyaala ku xiranaysa oo maalin walba la cunaysa ka soo baxsane hadaa rabtid hal baaquli ku shubaysa oo qaanta nadiif ah gashan oo ku soo guranaysa masha Allah sida jeceshahay waxa kale to aan soo karsaday idilma soo wadaagin qamadi ayaa biyo ku soo karsaday asagana spinachki waxaan gashanayaa fridge-ka jibsiga qaybtii koobaad way ka soo baxday insha Allah kulli sidaas u soo dhameey doona u jeedaan qaleelka kalar qurux badan oo ku soo baxay sidana ku soo wadaaya insha Allah markii aan soo dhameystay isku soo laabanayna hadda waxa iiga soo baxday pizzadii masha Allah sidaas quruxda badan ay ku soo baxday jibsigan ka bixinaya inta pizzada si qaboobayso halkan waxa iigu diyaarsan brushadaas ama jubadaas waxaan ku ridanayaa ku soo shubanayaa 2 qaando oo ah chia seed waxa ku soo darsanayaa hal xabo liin dhanaan liinaad marka ku daro ayadii qolofteeda ku sii ridi doona waxa kale oo aan ku darsanayaa qajaar insha Allah hadii aad tahay qof shaqo aadays hore u sii qaadan kartaa hadaa guriga joogaysid gurigaada ku caabi kartaa masha Allah inaba caadi maahan alaabtan walaalayga qaaliga ah alxamdulillah aniga sida shalay ahay ma ihi nafteyda sida rabina weli ma gaarin insha Allah hadii aad diet sameynayso oo dadaashid waa gaaraysaa yoolkaada maalin uun because hilibka kuma gorin hal maalin wuxuu ku koray si tartiib ah insha Allah yeelo go'aan dhab hadaa go'aan dhab ah yeelatid waa gaaraysaa yoolkaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ahne kaasho naftaadana ku tasho oo wixii aad cuni laheeday oo marka diet sameynaysid gooniha ku ahaadaano insha Allah markaas ayuu ku saxmayaa jadwalka jibsiisa inoogu soo baxay qurux badan pizzadii sidan ayay inoogu soo baxday masha Allah kala iska arag. Assalamu alaykum rahmatullahi